kulan waxaana wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meelwalba joogtaan ku soo dhowaada wararkii u dambeeyey ee Soomaaliya qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Imaaraadka Carabta oo qorshayaal gurracan ka wada dalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka soo dejisay diyaaradaha aan dooliyaha lahayn ee daroonta isla markaana xambaara gantaalada sidoo kalena fuliya sahanka 1200 oo askari oo calooshadu shaqaystayaal ajnabi ah kana amar qaadanaya dowladda Imaaraadka Carabta dhinaca kale madaxda dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa si gooni ah looga yeerayaa dalka Imaaraadka Carabta si ay u meel mariyaan xiriyaha ciidamada Imaaraadka Carabta ay ku yeelanayaan deegaanadooda Imaaraadka Carabta ay sida gaarka u calaamadeysteen waxaa ka mid ah Hirshabelle, Galmudug iyo maamul goboleedka Puntland. Dowladda Soomaaliya ayaana ku hungowday dhaqaale ay ka sugaysay Imaaraadka Carabta kaasi oo horey ugu bedelatay ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea. Lacagtan ayayna rabtaa dowladda Soomaaliya in ay u isticmaasho saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan oo iyagu horey uga hor yimid heshiiska ay dowladda la gashay Imaaraadka Carabta. dhinaca kale bedelka ciidamadan ay Imaaraadka Carabtu ku diyaariyeen dalka Uganda iyagoo oo halkaasi ku tababaranaya ciidamo Soomaaliyeed oo calooshooda shaqaystayaal ah kuwaasi oo ay doonayaan Imaaraadka Carabta in ay u isticmaalaan gudaha Soomaaliya hadba cidda ka hor imaata hagadaamada ay ka wadaan Soomaaliya. haddaba shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u hadalhaya baraha bulshada ujeedka ay dowladda federaalka Soomaaliya ka leedahay qorshaha ay dalka ugu gacan gelinayaan Imaaraadka Carabta oo horey ugu maqan dowladda Carbeed oo ku burbura gacantooda. Soomaaliya oo ka soo kabanaysa dagaallo sokeeye lana dhacaysa la dagaalanka Al-Shabaab iyo abaara daba dheeraaday ay Imaaraadku kala yihiin ujeedooyin aysan inta badan shacabku ku baraarugsanayn. dhammaan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan waxaana barnaamijka qaybiga ah oo stuudiyaha uga sugan saaxiibkay waana oo soo indheeyay xaaladihii u dambeeyay ee Soomaaliya waxaana ugu horeyn ku soo dhawo barnaamijka aad iyo aad baad u mahadsantahay Ilayso. haddii aynu ku bilowno Imaaraadka Carabta waxay magaalada Muqdisho ka soo dejiyeen 1200 oo askari oo ajnabi ah iyo sidoo kale diyaaradaha daroonka ah ee xambaara gantaalada. bal maxay tahay qorshaha iyo ujeedka Imaaraadka Carabtu ay kala yihiin dalka Soomaaliya ugu horeyntii adigoo noo faafaynay aad iyo aad baad u mahadsantahay Ilayso. tani intuu isbedel ka dhacay wadanka waxaa soo baxayay in Imaaraadka Carabta ay wadanka Soomaaliya ku soo laalaabanayeen ayagoo halkaasi mararka qaar shirar la geliyay madaxda ugu sareysa dalka sidoo kale tana shirar la geliyay saraakiisha ciidamada ugu sareyso oo aan ogeyn dhowr mar hore inay la kulmeen saraakiisha ciidamada ugu sareyso si kasta waxaad moodaa in maanta agabkan la soo dejiyay ee diyaaradaha leh ee ciidamada leh ee wax walba leh ee maanta wadanka Soomaaliya laga soo dejiyay waxay ku imaatay heshiis dhaxmaray dowladda federaalka Soomaaliya xubnaheeda ugu sareeyo iyo waliba Imaaraadka Carabta. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa dhowr mar ku laabtay wadanka Imaaraadka Carabta inta uusan xilkiisa dhamaanin ama xilka uusan ku wareejin ra'iisul wasaaraha haatan talada haya ee maxamed xamse cabdi barre. sidoo kale waxaan ogeyn safiirka Imaaraadka Carabta inuu halkan imaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud saadi loo doortay ayadoo booqashadii ugu horeysayba uunan aadin wadamada dariska ayuu ka bilaabay Imaaraadka Carabta. taasi waxay ku tusaysaa in xiriirka u dhaxeeyay xisbiga damul jadiid iyo waliba wadanka Carabta wadanka Imaaraadka Carabta inuu ahaa mid soo jireen oo soo socday oo campaignkii ilaa iyo xilli kastaba ay la socdeen xaaladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu muuqatay. si kastaba maanta waxaa magaalada Muqdisho laga soo dejiyay diyaarado markaasi ah kuwa drone-ka oo qaada ama xambaara gantaalada. sidoo kale diyaaradahan waxay awood u leeyihiin ilaa iyo 1200 kilomitir inay socdaan ama ay tagaan. dhinaca kale 1200 ee askari ee la keenay waa 1200 oo ajaaniba oo calooshoodu shaqaystayaal ah oo la rabo inay Imaaraadka danahooda u fuliyaan. sidaan ogeynba waxaa jiray qorshe lagu dhisayo saldhig weyn oo ay leeyihiin Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil oo laga dhisayo maamul goboleedka Puntland kaasi oo inta badan culimada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiintuba ay intooda badan ka soo horjeedsadeen laakiin ugu dambeyn Saciid Cabdullaahi Deni laga dhaadhiciyay halkaas inuu ku qaatay qarash aad u fara badan wuuna ogolaaday sida haatan aan wararka ku helin walow ay jiraan khilaaf ka dhashay qaabka loo mareynayo iyo saldhigaasi cidda isticmaalayso waliba ayadoon ognahay inuu hubkii ugu badnaa oo Imaaraadku ay leeyihiin laga soo dejiyay dekada Boosaaso horaantii sanadkan 2022 ee tagay. marka waxaad arkaysaa qorshahan Imaaraadku ay ka leeyihiin in saddex saldhig oo weyn ay ku yeeshaan maamul goboleedka Puntland koonfurka maamul goboleedka Hirshabelle iyo waliba Galmudug inuu yahay qorshe istiraatiijiyada oo ay ka leeyihiin in saddexdaasi gobol
ونقولنا إن يهون قبل الله ده أما عنده لبض قبل أو هذا قل مذوقيو سيدو كله تو معمول كهير شبيلة وحي ليهين دكذنا ويليهين سيدو كله تو قبل كهير شبيلة وحنقولنا إنه يا قبل قنية ومركزي قدار تقن اللودو في وضمان العربية أنت هذا بدن أي كسب هذا قبل كشبيل. tahay sidoo kale kun iyo laba boqol oo askari oo ajnabi ah oo caloosha shaqaystayaal ah ay maanta ka soo dejiyeen Imaaraadka Carabta dalka Soomaaliya ciidamadan xagee ka kala keeneen maxay yihiin ujeedka ay ciidamadan u keeneen maxay u qabanayaan Imaaraadku dhawaan waxaan ogeyn in wadanka madaxweynaha wadanka Kenya ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo waliba kan Djibouti inay ku kulmeen magaalada Muqdisho ujeedka safarkaasi lama faahfaahinin waxa la sheegay inay wadamadan iska kaashan doonaan la dagaalanka urka argixisada laakiin qorshuhu sidaas ma ahayn wadanka Imaaraadka Carabta saddexdaasi wadan wuxuu ku leeyahay galaangal xoogan iyo waliba dhaqaale fara badan oo u galiya wadamadaasi sidaan ognahay waxaa jirto qorshahan wuxuu ahaa Imaaraadka Carabta ayaa ka dambeeyay waxaana wadamadan laga dalbaday in wadan kasta uu keenay 1200 oo askari oo Imaaraadku ay leeyihiin dhaqaalahooda ay ku bixinayaan wadamadaasina ay siinayaan Imaaraadku damac ay kala yihiin iyo qorshe ay kala yihiin ciidamadan يعني dadka looma faahfaahinin laakiin waa qorshayaal marka la fiiriyo ilaa soo aad yani u taabanayo dhamaanba ummadda Soomaaliyeed qorshaha laga leeyahay intaan u guda galin saddexdan wadan waxa lagu siinay dhaqaale fara badan in ciidamada keenan ciidamadan atmiska ma tirsana waxay ka tirsan yihiin malaha waa ciidamo ay Imaaraadku leeyihiin dhaqaalaha dawladda lagaga bedeshay oo dawladda dhaqaale fara badan baa loo sheegay waxa dawladda kale laga codsaday in saddex saldhig la siiyo saldhigadan lama garanay xataa in wadanka looga duulayo inay wadamo sheeynta meeshan imaadaan sida wadanka ku qabsanayaan ama kala qaybsanayaan lama ogo qorshuhu cid og oo markaas ummadda Soomaaliyeed loo sheegay ma jirto laakiin arinta loo malaynayo ama inta badan ay arintan u egtay waxa weeye maalmihii ugu dambeysay wadanka Soomaaliya ilayso waxa ku soo laalaabanayay shirkado shisheeye oo shidaalka baariya ama shidaalo ceelal shidaalka qodiyo Imaaraadka Carabtana waxa la sheegay hadii wadanka Soomaaliya shidaal laga qodo Imaaraadka Carabta wuu angagaya ama wadamada khaliijka intooda badanba shidaal ma yeelanayaan oo waxaan ognahay wadanka Soomaaliya ayaa ka hooseeyo wadamadaas marka meeshay hoose umbuuna wax isku soo aruraya marka ayuu arintaasi ka duulayo oo shirkadaasi baajinay oo waxaas baajinayo ayay ciidamo keenayaan waxay rabaan siyaasiyiintii ka hadasho iyo cidii ka hadasho inay ku duulaan markaad fiiriso ciidamadan waa ciidamo calooshood u shaqaystayaal oo la rabo in wadanka lagu hantado lagu dhibaateeyo lagu waxyeelayo siyaasiyiinta ka aragtid duwan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haatan waxaan ognahay in madaxweynaha korsi uu socdo oo ka socda magaalada Muqdisho waxa ka hadlay siyaasiyiin mucaarada kuwa laftirkooda ciidamadan baa lagu qabanaya oo guryaha u galiyo qabanayo marka waa qorshe istiraatiijiyada oo dejisteen xisbiga Damul Jadiid walow aad moodidba in looga baxay heshiiskii haddana ilaysow waa istiraatiijiyad qarsoon oo laga yaabo wadamada shisheeye ciidamada laftirkooda inay qayb ka yihiin mashruucan Imaaraadku ay wataan laakiin si kastaba marka la fiiriyo waa mashruuc halis ku ah dhamaanba ummadda Soomaaliyeed meel ay ku dhaqan tahay waa tahay dhinaca kale dawladda Soomaaliya waxay ku hungooday dhaqaale ay ka sugaysay Imaaraadka Carabta kaasi oo la leeyahay horay iyo ugu bedelatay dhaqaalahan ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea maxay tahay sababta Imaaraadka Carabta ay uga baxeen heshiiskii ay dawladda la gashay lacagtina ay u siin laadahay bay kula tahay dabcan heshiiskii way ka baxeen waxay uga baxeen maamul goboleedyada saldhigyada laga sameeyo ayaa mid loogu yeeray oo dhaqaalahaasi la siiyay dawladda federaalka Soomaaliya lacagtii ay qaadan lahayd malaayiin dollar bixid dhawaan waxaan ogeyn in maamulka Puntland ay ku dhawaaqeen inay dawladda federaalka Soomaaliya xiriir ku jareen xiriir jar kala ma ahayn waxa la isku gafay dhaqaalahan saldhigyada ilaa meelaha laga sameeyo Muqdisho kuma taalo dhaqaalaha ugu badan in marka Muqdisho la siiyo Muqdisho la geeyo taasi ka soo horjeedeen marka saddexda maamul goboleed ee Imaaraadku ay doorteen madaxweynayaashooda mid ayaa loogu yeerayaa magaalada Dubai halkaasi ayaana lagu siinayaa dhaqaalaha ay rabaan dawladda federaalka Soomaaliya haatan clash kaaba looga kacay ayadoo heshiiskan khatarta badan ummadii ku dhaxriday haddana waxaad moodaa in heshiiskii ayada ay sameysay maanta uu lugaha u galay marka si kastaba markaad fiiriso heshiiskan waxa uu ahaa heshiis marka hore u dhaxeeyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Imaaraadka Carabta laakiin wuu balaadhay maamul goboleedyada wakiil isku keenay magaalada Muqdisho wakiil halkaas lagu sheegay Saciid Cabdullaahi Dan waa ku iskaga baxay oo dhahay aniga wixii shirkaasi ka soo baxay heshiis kamani bari baan ka ahay mana rabi wax la isku haysta lacag baxid maamul goboleedyada kale aan saldhig laga sameeyeen ayaa lacagta qayb ka qaadan lahaa marka si kasta markaad fiiriso qorshahan waa qorshe markii hore ay dawladda federaalka Soomaaliya ogolaatay laakiin la minjaxaabiyay oo haatan maamul goboleedyada sida hadda yani la arkayo looga yeerayaa mid inay tagaan magaalada Dubai
واتهاي waxaan ogeyn in ciidamadii la keenay dalka Eritrea ay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ku wareejisay dalka Imaaraadka Carabta haddana ciidamo kale oo ugu gaaraya 5,000 ilaa 4,000 askari ay Imaaraadku ku tababaranayaan dalka Uganda kuwaas oo ay ka ururiyeen gudaha Soomaaliya bal maxay tahay ciidamadan cusub ee ay ku tababaranayaan ee gudaha dalka Uganda ciidamadii laga keenay waddanka Eritrea ilaysow way diideen damaca Imaaraadka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ogeyn ciidamadaasi markii la keenay in lagu xereeyay mid ka mid ah xeryaha ku yaalo magaalada Muqdisho ayagoo hub la'aana saad la'aana wax la'aana waxaan ognahay in isbuucyadii ugu dambeysay ciidamadaasi ay ku soo dhaceen gacan markaasi ay ku soo baxeen yacni suuqa inay iska soo daateen dabcan markii Imaaraadkii uu ka baxay daaqada oo diideen saraakiishoodii in Imaaraad u hoggaansamaan markii dawladda federaalka Soomaaliya ay dhahday haddii marba in Imaaraadka inaga gadanay in ku wareegaynin oo ka amar qaadanaynin annagu waxba inima hayno waxa la arkay magaalada Muqdisho Soomaaliya ugu dambeysay in amni darro iyo waliba xaalado adag ee la daala dhacaysay ciidamadaasi ayana qayb ka ayaa inta badan lagu eedeynayay ciidamadan waa ciidamo lagu anqariyay wadaniyad iyo waliba sidoo kale wadan jacayl iyo in ay dadkooda u dhintaan lagu carbiyay ma ahayn ciidamo sidaas lagu wareejin karo oo la gadi karo ta kaleeto tan iyo ciidamadaas xilliga la keenay magaalada Muqdisho waxa ka socday 3 bilood ugu dambeysayba qorshe iyo abaabul lagu aruurinayo ciidamo markaas la sheegay inay qayb ka yihiin ardada jaamacadaha iyo waliba sidoo kale ardada kaleeto ama dhalinyarada kale ee magaalada Muqdisho oo si xoog inta loo soo qaaday xeryaha ciidanka la geynayo iyadoo waliba loo sheegayo in dhaqaale fara badan la siin doono marka ay tababarka soo dhameystaan qaarkoodna ay baraale ka hayeen inay baxaan oo ciidanka ay ku biiraan si kasta markaad fiiriso ciidankan faraha badan ee Uganda la geeyay waa ciidan lagu qiyaasay tiradooda 3,000 ilaa 4,000 oo askari waxayna qayb ka noqon doonaan ilaysow ciidamada Imaaraadka Carabta ay ku handadayaan waddanka Soomaaliya sidoo kalena ay rabaan inay khalkhal amni ay kaga abuuraan dhinaca kale to ciidamada bes maaha waxaan sheegnay in 3 wadan ay ciidamo keenayaan Kenya Ethiopia iyo waliba Djibouti waddan kasta 1,200 askari oo aan ka mid ahayn ciidamada ATMIS ayuu keen doona 1,200 Ethiopia waa ay tageen oo waxay ka digeen magaalada Muqdisho ciidamadan waa ciidamo ku hawlgali doono يعني قلب كستا أو ميليتري أو عسري هذا نقطة ديار درون هذا نقطة ديار عادية هذا نقطة بابور تقاشامن وح كستا أي استعماليا وهي أودو ليهن إذا ما داسي إنه كهول جلان مالن كستا كن إيا بقول أو كيلومتر أو سكوير أرنتاسي وحي أفضلينيسا إنه إذا ما داسي عد كستا أو كورماتو أما أجندوها إماراتك وحكد انتو إن أي جبيهانبا أي وحيالينيان أما أي دباتينيان واتهاي هذا ما حيتي وجدك دولة فدرالك الصومالية كلا هذا هاي قرشهان أي دلك وقع عن قلنيسو دولة إماراتك عارضة ديقو سو كوبي horta waxaan ognahay in dawladda federaalka Soomaaliya hadiiba xataa wadan ay u gacan gelinayso in Imaaraad u gacan gelisay maahayn Imaaraadku waa wadankii burburiyay wadanka Yemen Liibiya iyo waliba wadamo kale oo haatan dhibaato ay ka taagan tahay Carbeed gacantoodana maanta ay ku maqan tahay dawladda federaalka Soomaaliya kama aysan fikirin fikirkan lagu wareejiyay dhulkii Soomaaliyeed ama ciidamadii Soomaaliyeed lagu gacan geliyay cadawga baaxadiisu ay weyn tahay markaasi shisheeyaha ah ee Israa'iil gadaasho ku wato sidoo kale tan dhibaatooyin kala duwan markaasi u soo wajihi kara gudaha dalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayadoo danteeda fiirsanaysa ama mas'uuliyiinta waxba yaan dawladda dhihin madaxa dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dantiisa ka arkay Imaaraadka Carabta dabcan dhaqaalaha haday noqoto dhul haday noqoto wax kasta haday noqoto iyo waliba inay iyagu ahaayeen dadkii maal gashtay ee soo saartay يعني حسن الشيخ محمود حلقي دور الشغل مركا تاسي واحد مدا إن أبال وهري أي أو قلنا إماراتك أو جودي إنه دولكي يعيد مدي كوريجيو وطنك إماراتك عربتا تاسي أيادنا مدا إني تاي مدة دبجوكتين ما أنت دولكي سوماليا دوريجيو تكررت دولكي سوماليا والله ده لدعية أبارو يقولي بس وكالة الله دجالن كورك الشباب يدي باتوين كل دون إن أرنتن هاتن إماراتك هالكا يكودان كم براركسنو إلا يحلقن وحش عبا وكهلي مجرو aad iyo aad baa mahadsantahay daawada intaasaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena koobnaa inuu ku falanqeynaa xaaladihii u dambeeyay Soomaaliya wixii ka soo kordhana waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe halkadii ku soo gudbin doono balse kan kiisa xigeenta halkan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo